gudoomiyaha golaha wakiilada Somaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Ciro ayaa soo gaaray dalkani Jarmalka magaalada Bonn halkaas oo jaaliyada reer Somaliland ay ku dhaqan dalkani ay aad u soo dhaweeyeen socdaalka Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Ciro ayaa noqonaya markii ugu horeysay uu soo gaaro dalkani Jarmalka waxaana halkani uu daaha ka rogay ama uu xariga ka jaray xafiis cusub oo urur siyaasadeedka wadani ee uu Cabdiraxmaan hogaamiye uu ku yeelan doono dalkani Jarmalka halkaas oo lagu magacaabay hogaamiyaashii ururka wadani uu ku yeelan lahaa dalkani Jarmalka على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وحفرحد وينيا ونوم مهضنقيا شاليد السوماليلاند وضك الجرملكا ككريمي مقالوي ككل الدول لما انتود يبسوا دويي هالكن وحا مناسبة النقاليقا أنا ضم فرح سنة هاي إنا وربحين كسيو وضن كي هدي لها إلى شاليد ده Somaliland waddanka Jarmalka dhanka kalena waxa halkaasi khudbad ka jeediyay wakiilka Somaliland u fadhiya dalkani Jarmalka Cabdi Aadan Warsame Abu Hurayra isagoo khudbadiisu meelo badan taabanaysay ayaa waxa uu aad u dhaleelay bulshada reer Somaliland ee ku dhaqan dalkani Jarmalka kuwaas oo sheegay in aanay ka dhaxaynin isku duubnaan weyn isla markaana wuxuu soo jeediyay in ay wax tari karaan marka iyagu ay isku duubnaadaan inta ka horeysay si ay waxba qaban karin waa inagu aynu sunnigaado aynu wax wada qabsano tiisaba daryeel ayaa ku maamulay marka ayaa tii kala tusada laakiin inagoo aan dhisnayn dee wadankii waxaa loo dirayo xagga masaakiinta waxaa la taro ma soconayso mar haddaan qofkii kala la hadlay ama jaaliyada kala la hadlay waa talmaqlaysa meesha saac wixii ka dhacay waliba taa u jecel laakiin ku dhaqaaqistii ay meelayeen kadib furitaanka xafiiska urur siyaasadeedka wadani uu ku yeelanayo dalkani Jarmalka ayaa telefishinka caalamiga ee Cable TV waxa uu dareenkiisa weydiiyay gudoomiyaha cusub ee urur siyaasadeedka wadani xafiiskiisa dalkani Jarmalka Xuseen Abiib waana kan Xuseen sida dareenkiisu uu yahay iyo waliba sida ay u soo dhaweynayaan gudoomiyaha baarlamaanka Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro وانا نشوف حسن هاي وصلنا الفيديو تنسنا صوتان بالليل ودنا صوتان كل وانا سوق قاعد كان ريتشلمن ومدنا علينا شمالي نهار كذا لكن كل يوم هسه يعني مدنا توصيل وانا ما اسمه ودنا ما تعرف الدنيا gudoomiyaha golaha wakiilada Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro ayay noqonaysaa markii ugu horeysay ee uu soo gaaro dalkan federaalka Jarmalka tan iyo 2006 markii loo doortay inuu hogaamiyo golaha wakiilada Somaliland Cabdiraxmaan Ciro safarka uu ku yimid dalkan Jarmalka ayaa runtii aad u soo jiitay bulsho kumanaan ku gaaraysa oo ka soo jeeda gobolada Somaliland oo dalkan ku dhaqnaa kuwaas hore aan u arag mas'uul xilkaasi ayuu soo gaaray dalkani Jarmalka Cabdiraxmaan Ciro ayaa waxa uu faahfaahin dheer ka bixiyay xaaladda guud ee dalka Somaliland uu marayo waxaanu uga tusaaleeyay sida iyaga loogu baahan yahay in dalkoodii ay wax taraan Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro gudoomiyaha golaha wakiilada Somaliland waxa uu hore u soo maray dalka Belgium halkaas oo khudbad taariikhi ka jeediyay iyo waliba dalalka Norway iyo Sweden gabagabadiina socdaalka uu ku mariyay qaaradan Yurub waxa uu ku soo khatimay dalkani Jarmalka iyadoo la filayo inuu sii jeesto dhinaca magaalada Hargeysa xarunta Jamhuuriyadda Somaliland Mustafa Xaaji Aadan Haarun telefishinka caalamiga ee Cable TV Jarmalka